Sheekada waxay ku bilaabanaysaa boqortooyo qurux badan, waxaana ku noolaa reer. Reerkaasoo lahaa awood aad u cajiib ah, waxayna lahaayeen 6 carruur ah. Aad ayayna ugu faraxsanaayeen noloshooda, waxaana u dhalatay gabar cusub oo yar. Gabadha yar waxay wejigeeda ku lahayd calaamad, waxayna noqotay mid qaadatay awoodda oo dhan. Aabaheed ayaa dhahay waxay ku leedahay wejiga calaamad, waxayna noqon doontaa gabar aad u cajiib ah, waxaana u bixinayaa Bridget. Ma ogtahay reerka cajiibka ah inay u dhalatay gabar, waxayna leedahay awoodda oo dhan. Wejigooda waxay ku leedahay calaamad, waxaana loo bixiyay Bridget. Ma ogi aniga, balse waa inaan ka soo war doonaa. Waxay noqon doontaa gabar cajiib ah. Sidaa ayay ku sheekaysteen saaxiibadii, wuxuuna ku dhahay waa inaad aamustaa si uuna kuu maqlin boqorka iyo ciidamadiisa. Balse boqorkii ayaa maqlay dhalashada gabadha cajiibka ah, wuxuuna ciidankiisa ku amray inay ilaaliyaan reerka mucjisada. Bridget aabaheed ayaa ogaaday arrinkaas, waa uuna qarin jiray. Wuxuu ka baqi jiray inay gabadhiisa dhib soo gaaraan, waxa uuna ku hayn jiray guriga. Wuxuuna adeegsaday awooddiisa si uu gurigiisa gaashaan ugu sameeyo si uu u ilaaliyo gabadhiisa. Bridget waxay ku kortay gurigeeda dhexdiisa, mayna ahayn mid ka baxda guriga. Mar walba oo ay weynaato waxay jecleed inay guriga bannaankiisa u baxdo, waxayna ka masiiri jirtay walaalaheed markay aadayaan bannaanka. Aabaheed ayaana u diidi jiray inay bannaanka aado, cabsi uu u qabo ayada. Gabadheeda hadda waad weynaatay, mana kusii jiri doontid guriga. Sidaa daraaddeed waxaan ku siin doonaa awood aad ku leedahay wejiyo badan si aad isugu ilaaliso markii aad bannaanka u baxdo kadib. Aabaheed ayaa saa ku dhahay, waxa uuna siiyay digniin ah inay awooddeeda isticmaali karin hal mar inta ay nooshahay. Haddii ay isku daydo inay mar kale isticmaashana, awoodda ayaa ayada baabi'in doonto. Wejiga aad dooratay inaad yeelato ayaad yeelan doontaa inta aad nooshahay. Ayaa waan qaadan doonaa taladaada. Bridget awooddeeda ayay adeegsatay si ay isugu beddesho gabar kale oo loo garan inay tahay gabadhii mucjisada. Sidaa daraaddeed waxay u soo baxday bannaanka si ay u ogaato caalamka bannaanka sida uu egyahay. Markay u soo baxday bannaanka, waxay ahayd mid caawisa dadka oo dhan, waxayna u adeegsan jirtay awooddeeda si ay u siiso lacag iyo cunto. Dadkoo dhan ayaa jeclaaday Bridget markay la joogtay maalmo kadib. Aad ayayna u ixtiraami jireen maadaama ay caawin jirtay ayada. Bridget ayaana ku faraxsaneyd shaqada ay qaban jirtay. Maalmo kadib waxay u soo baxday keenta si ay u soo ogaato waxa gudaheeda ku jiro. Waxay soo dhex mari jirtay keenta ayadoo ku faraxsan muuqaalada ay arkayso, buuraha, webiyada iyo qorraxda. Maalin ayadoo soo maraysa keenta ayaa waxay maqashay qayle ka imaanaysa dhankeeda. Markii ay fiirisay waxay aragtay wiil dhalinyar ah oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada boqorka, waxayna rabeen in ay dilaan. Bridget ayaa waxay adeegsatay awooddeeda si ay u caawiso amiirka. Kadib awooddeeda ayay adeegsatay wayna soo badbaadisay. Mahadsanid, nolosheeda ayaa soo badbaadisay, ayuu ugu jawaabay amiirkii. Waxaan ahay amiirka boqortooyadan. Ciidanka boqorka ayaan rabay inay i dilaan si khiyaano leh, waana soo badbaadisay. Ma ogaan karaa magacaada, ayuu ku dhahay. Magacaygu waa Bridget, waxaana ka soo jeedaa qoys iska caadi ah, ayay ugu jawaabtay. Maadaama ay isku da' yihiin, waxay bilaabeen isla markiiba inay isla qabsadaan. Waxayna ahaayeen kuwo kusoo wareega keenta, wayna safri jireen ayagoo aad u faraxsan. Markii ay isla qabsadeen ayaa waxay bilaabeen inay isla wadaagaan sirtooda. Bridget ayaa dhahday waxaan ka soo jeedaa reerka saaxiriinta. Aabbahay waxa uu yahay saaxirka ugu weyn. Waxaan ku dhashay calaamad, waxaanan ahay gabadha yeelatay awoodda oo dhan. Kadib awooddeeda ayaan isticmaalay si aan u beddelo jirkeyga, waxaana u soo baxay keenta si aan u ogaado. Amiirka ayaa dhahay waxaan ahay wiil ay soo korsadeen reerka boqortooyada, mana ahi wiilkooda dhabta ah, waxaana ahay dhaxal sugaha meeshaas. Balse boqorka ciidankiisa ayaa maqlayay, waxayna u soo sheegeen boqorka warkii ay maqleen. Boqorka ciidankiisa waxa uu u soo diray Bridget gurigeeda si ay u soo qabtaan hooyada waalidkeeda. Bridget ayaa xanaaqday, waxayna dhahday sirteeda waxaa og oo kaliya amiirka. Wuu i qiyaamay, waa inaan ka aargutaa. Ayadoo xanaaqsan ayayna soo carartay. Waxay go'aansatay inay badbaadiso hooyadeed iyo aabaheed, waxayna soo aaday qasriga boqorka. Waxay aragtay qasriga boqorka inuu leeyahay ilaalo aad u adag, umana suurtageli karin inay soo gasho. Waxayna go'aansatay inay isku beddesho
amiirka wejigiisa si ay u gasho qasriga dhexdiisa. Markii ay soo dhex gashay qasriga, waxaa imaaday boqorka meeshiisa, balse may ahayn hooyadeed iyo aabaheed, wayna ka soo carartay isla markiiba. Balse waxaa helay inay daasho, waxaana ka muuqday calaamadda isbeddelka. Qaabkeedii hore ayay ku soo noqotay, waxaana muuqday calaamadii uga taallay sujuudda. Boqorkii ayaa arkay, aad ayuuna ugu farxay. Kadib wuxuu bilaabay inuu soo weeraro. Baraajid way iska difaacday boqorka, balse aad ayay u tabadarneed, wuuna ka guuleystay. Markii uu rabay boqorka inuu ka qaado awooddeeda, wuxuuna u soo jiray tillaabo yar, balse amiirka ayaa isku dhigay, waxaana soo gaaray dhaawacyo aad u culus. Baraajid ayaa weydiisay, maxaad ii badbaadisay? Markii hore adiga ayaa ishqoolay. Waxa uuna ku dhahay, kan ma aha boqorka. Boqorku waxa uu ahaa aabahey, asaga ayaa dilay. Haddana waxa uu rabaa inuu adiga ku dilo. Sidaa daraaddeed waxaan go'aan ku gaaray inaan ku difaaco, asagana aan ka arguto. Baraajid markii ay maqashay runta, aad ayay uga shanlaysay inay rumaysan weysay amiirka, wayna xanaaqday. Kadib waxa ay soo bixisay awooddeeda dhan si ay ugu weerarto boqorka. Markii uu boqorka weerartay ayaa waxa uu ku dhacay dhulka. Baraajid ayadana waxa ay ku dhacday dhulka, waxayna noqotay tabar la'aan. Markii ay suuxday Baraajid, amiirka ayaa soo kacay, wuuna soo xambaaray, wuuna la soo tagay. Wuxuuna u raadinayay cid caawiso oo daaweyso Baraajid. Markii uu u imaaday dadkii magaalada ayaa wuxuu u sheegay Baraajid inay tahay gabadhii caawin jirtay ayaga, waana gabar daacad ah. Kadib dadkii tuulada ayaa isku wada imaaday si ay u badbaadiyaan Baraajid, waxayna isugu imaadeen sidii ay ugu duceeyaan Baraajid inay caafimaad hesho. Dadkii dhan ayaa isu imaaday, waxayna shiteen shumacyadooda, waxayna bilaabeen inay duceeyaan. Markii ay dhammaysteen ducadoodii ayaa waxaa shumacii dabkiisa ka soo baxay u imaaday Baraajid, waxa uuna bilaabay inay daaweysmato. Kadib Baraajid ayaa dhulka ku soo noqotay ayadoo fiican. Dadkii tuulada oo dhan ayaa farxay. Amiirka markuu soo cestay boqortooyadiisa, waxa uu guursaday Baraajid, waxayna ku noolaadeen nolol farxad leh. Xukunka amiirka dartii, dadku waxay ku noolaadeen nolol barwaaqo ah. Sheekadana halkaas ayay ku dhamaatay.